السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأركسن في اي بي channel maanta waxaan ka hadlaynaa waalidka inta nuuc u kala baxo 1960kii ayaa psychologistadan ay baaritaan ku sameeyday waalidiinta iyo inta ay u kala baxaan adduunka waxaa jiro 4 waalid ama 4 nooc Diane Baumrich ayaa waxay clinical psychologist ku sameysay waalidiintii 1960kii waxayna ogaatay 3 waalid ayay ayada ogaatay ta kalena gadaal ayaa looga soo dari doonaa laakiin ayada 4 ay soo saartay afarta ay soo saartay waxa waaye waalidka la yiraahdo authoritative parenting waalidka asaga kaliya guriga ka taliyo oo ilmaha ay yihiin ilmo aysan hadalkooda iyo ra'yigoodana aanan ka shaqeynin meeshan waalidka la yiraahdo authoritative parents waa waalidka ilmahooda fikradda siiyo fikradooda iyo hadalkooda iyo nacam inay ra'yigoodana dhageystaan wixii talana sii kara ah ay siiyaan iyo permissive parent waalidka ilmaha kaliya ay guriga ka taliyaan waalidkana ay iska yihiin dad sacbooleeyo oo guriga iska dhex taagan oo wax baawara iyo ra'yina aysan baxsan karin iyo waalidka afraad oo gadaal looga soo dari doono oo la yiraahdo uninvolved parent waalid aanan ilmahooda shaqo iyo shuqulba ku darsanin oo mararka qaar aad is dhahdo kuwaan ilmay dhaleen mase waxba maba aysan dhalin waalidka ugu horeeyo aan ku bilaabi doono waa authoritarian parent waa waalidka aaminsan ilmuhu inay ilmo yihiin wax hadala oo hadalkooda aanan guriga laga maqli karin amarka ay waalidka bixiyaanna waa inay ilmaha ay raacaan amarkaas kaliya ayay guriga ka shaqeeyo afka carabigana markay bugaagta ay waalidiinta ay ku soo saarayeen waxay u yaqaaneen almurabbi almurawid waa waalidka wax rabaayadeeya ayay dhaheen kaliya waxay aaminsan yihiin ilmaha inay wax siiyaan ay cunno siiyaan ay nadaafadeeyaan laakiin ku amro ilmaha inaysan meel ka kicin ama aysan waxba samaynin ay haddii ay wax sameeyaanne ay ilmaha wax dila u geystaan ama ay ciqaabaan ay dhahaan maxaa la yiraahdo waxaas baa sameeyda ciqaabteedii ayaad maraysaa ilmaha noocaasi ku soo koro marka ilmahaagi aad adiga qalad hadduu kaa sameeyo aad garaacdo ra'yigiisana aanan guriga ka shaqeynin uunan hadli karin qayli karin wax ciyaarana uusan samey karin ilmahaasi markaad adiga kasii jeesato inay ciyaaraan waa macquul markay adiga ku arkaanna inay fariistaan cunuga noocaasi ku soo koro hadhow wuxuu noqonayaa ilmaha la duufsado gabar hadday ahaydna gabdhaa duufsanayo wiil hadduu ahaayna wiilal baa duufsanay sababtoo ah waa cunug soo qaatay iyo cunug la soo rabaayadeeyey oo amar inuu qof ka qaato ma ahane aanan noloshiisa aanan kaligiis isku kalsooneen because shakhsiyadda cunugaasi uu leeyahay waa shakhsiyad aad daciif u ah adaana ku soo koriyey because xilliga golden age ka la yiraahdo cimrigii dahabka ay u bixiyeen cimrigii dahabka waa cimriga 6 sano iyo wixii ka hooseeyo intaasi haddaad soo ciqaabtay oo fariiso laakiin adiga waalid baa too ciqaab kama wadid laakiin waaba intii aad taqiinad in ilmaha meel la iska fariisiyo guriga la iska nadaafiyo ilmaha edab iyo anshax la iskaaga yeelo waxaas qofka ku soo koray asna wuxuu aaminsan yahay in ilmaha edab iyo anshax inta la iskaaga yeelo hadda gurigina uu dhalaal bato adigana aad istarax meel u fadhido cunug dushaada soo taaba kare uusan jirin aabayaasha qaarkood albaabka markay ka soo galaan ilmaha waa la xareeyaa odaygiyaa soo socdee ka carara meesha la yiraahdaa inuu bahal soo socdo camal ilmaha la sii carajiyaa oo guriga la sii habeeyaa oo istareega ilaa wadada dhan maxaa la yiraahdaa wax dhan laga kala ilaaliyaa aabbo lagu farxayo aabbaa soo socdo la farxo ayaa la rabaa maahane aabbo laga baqo oo laga gariiro laga cabsado aabbo ma noqonayo wax kasta cabsiyo cunuga ku sameeyna quraan hadaad bari lahayd cabsidaadu ku baranayaa waxbarasho hadaad u dirta cabsiyo ku baranayaa cunugaasi marka uu weynaado li'anna wuxuu rabaa asna qofkii sidii gumaysigii uu ku soo koray sidoo kale qof gumaysto bis mooyaane ma rabiyo qof iskala mid dhiga xitaa oo noloshiisa dhoon qof iyo qof bilaadan aha tahay adna halkan ku socon halkaan ku socona
ma yeelayo qofkaas cunugaasi wuxuu jeclaanayaa inuu qof daba joogo qof daba socdo la hogaamiyo ilaan waa la bara in la hogaamiyo ra'yigiisa iyo fikradiisa waa la diiday in laga aqbalo guriga hadda maxaad ku diidaysaa cunugaaga markuu mujtamaca dhex galo in asagana la hogaamiyo ha ka masayrin hana ka xanaaqin in cunugaaga ilmaha kale ka aktifsan yihiin oo ilmaha kale uu iska daba socdo oo asaga dhan muqtar nacam cunug aan isku kalsooneen adaa ku soo koriyay waalidka labaadna waxa weeye waalidka la yiraahdo authoritarian parent waa waalidka ilmihiisa maskaxda ka dhiso oo waxa cunugiisa rabo iyo waxa maxaa la yiraahdaa uusan rabin xataa markaasi uma diidayo wuxuu leeyahay waxaad ku jeclaatay waxaas ii sheeg gool buu u sameeynaya oo lee maanta hadaa waxaan sameeyay adigana halkaasaan ku wadaa maanta maalin joogaan aadeyna ama halkaas ciyaartaasaan ku kaxeena laakiin waa inaad waxaan ila barataa waa ilmaha waalidka ilmahooda soo dhax fariista haday wax baranayaan la yiraahdaan haye say halkaan waxaan u qortay homework laga rabisaan miyaha haye buuga noo soo qabo aan soo fariisano oo wax isla akhrino oo wax isla barano oo ra'yiga iyo fikradiisa qofka ilmaha weydiiyo ilmuhu waa cajalad inta ay yar yihiin oo dhan waxbay duubayaan sida ay adiga ka arkaan ayay kugula dhaqmayaan marka dambe hadad inaad wax yar oo qalad haday sameeyaan inaad xanaaqeed hadad ogto waa laga qarinaya ilaa gurigaagiyo balaka jirto aadan hadana war ka haynin because waxay leeyihiin yey ogaanin hadana ilmaha waa khibrad ay waxay u leeyihiin inay wax haday ogaadaan inaad qof iska kacaaya aad tahay waxay sameynayaan inay wax alla waxay sameynayaan ka qariyaan ilmaha qaar dariskay sarta ku qarsadaan dhibaatada ay qabaan hooyada dhashay iyo aabaha dhalay waxba uma sheegi karaan maamada dariska ah oo eedo ma fiicantaha ku tiraado wax walba ay u sheeganay eedo dhibkaan baa ay haysto hooyada ayada dhashay laakiin wax ay u sheeganaysa malahan sababtoo ah waxay ogtahay inay ku xanaaqayso waalidkaas oo kale waxay ilmihiisa 100% horumar ayay gaaraan sababtoo ah waa ilma maxaa la yiraahdaa kalsooni leh nacam hooyadoodii aabahoodna qofka bilaadanka baak nacam gadaashiisa wuxuu u baahan yahay qof ku tiirsan oo dhigi karo maanta hooyaday baan ku tiirsanoo wax alla wixii dhiba ayadan ula tagaaya aabahay baan ku tiirsanoo ilmaha qaar ma aragta markay waalidka kala hadlaan alla waxaan haday dhacaan hooyaday xanaaq way xanaaqaysaa ma arki karto waxaan way nacam hooyaday way iga xanaaqay qaarna waxay leeyihiin alla hooyaday igu maqlay hal qariyo kuleen kuwane they cannot wait maba sugi karaan ilaa ay hooyadood arkaan ee arrinkii wixii dhacay inay uga sheekeeyaan qaarne waxay ku leeyihiin ani hooyaday hadalkan maqlin hal qariyo marka waalidkaas waa waalidkii oo ahay in asaga ra'yigiisa guriga ka shaqeeyo ra'yiga ilmihiisa aanan ka shaqeynin ilmaha Joyce baa la siiyo waalidkan wuxuu ku fiican yahay maanta cuntada la karinayo ilmaha la weydiinayo hooyo ma baasta maanta idin kariya ma bariisa la kariya ma canjeera la duba cunuga kalsooniya galayso waxa la leeyahay maanta Joyce-keyga la karina oo ku faanaya cunug maanta ana faamilka cuntada dhan ay karsanayaan aniga aqligeyga waa because ana dhahay waxaas la kariyo waana la kariyo maanta because wuxuu ogaanay adduunyada inay guriga adduunka lagu sheegay muxuu yahay waa gurigaaga waa adduunka lagu sheegay xumaati haday jirto adduunka ka jirto gurigaaga ka dhacaysa wanaag haduu ka jirana gurigaagu ka baranaya xumaati haday adduunka ka jirtana gurigaagu ka baranaya wanaag jacayl wax walba meeshii uu ku baran lahay barbaarinta caruurta maxaa cunugaani oo adduunka markuu imaaday wax kasta uu yaqaan aduu ka bartay ilaahay ka suko aduu ka bartay ilma ma aragtay macallin basbaasa soo socdo macallinkii quraanka macallin basbaasa soo socdo macallinkii kululaay waayo basbaas wax ka kulul inuu jiro ma oga moogta markaas ku leeyahay macallin basbaasa soo socdo ilmahaas quraanka waa lagu qasbay wax barashada ilmaha quraanka ku qasbinina asxaabi maxay dhahan zamanka aad joogtiin ilmihiina ku koriya adiga hadad rabto 2020 adoo joogo ilmahayga 1970 ku korinaya ciidu ka yeelime ilmahaaga waa kii banaanka u soo baxaa laakiin waxa ku fiican wixii zamankii ka jirana inaad adiga oo afkaaga iyo ay maxaa la yiraahdaa aad tusto dhahday dhibkaan ba adduunka ka jira oo tiraadid hooy halkaan ba dhibkaan ka jira hadda iska ilaali ani bariha igu tashanay
laakiin haddaad wax walba waxaad tiraahdo waan ka daboolayaa kama dabooli kartid cunugana waxaa koriyo bii'ada uu ku dhex koro environmentiga iyo bii'ada dariska nawaaxiga xaafadda aad degan tahay ilmahaaga waxa ay yihiin ayay kasoo dhex baxayaan hadduu xaafadaada xuntaa xaafadda bedel okay barantiga waa barantigii ugu fiicnaay maxaa la yiraahdaa ay carabtana ay u bixiyeen carabtana u bixiyeen المربي الإيجابي أي أبحيين ووالد كباسطفك حريرك في عن علمه سكلا دحيو ووالد كاسي ووالد آد علمه ودحوق سارة بقول كيب بقولنا فرصة أيجا سيا ما سيان نقدرس oday telefoon ka soo hadashay waxyaabaha noocaas ma siiyaan boqolkiiba boqol ilmahooday la faraxsan yihiin ku dhex jiraan la dhaxboodayaan la ciyaarayaan way yartahay aabba inta banooni soo qaato ilmihiisa banaanka daarada banooni kula ciyaar wuxuu ka jecel yahay odayga halkaas taagane Falastiin ma la weerar Iraaq ma sidiiba siyaasadahaas inuu ka hadlo ayuu ka jecel yahay intuu wiilkiisa intii la kaalay ila ciyaar intuu wiilka overweight ka noqon ama caata guriga u dhex fadhiyo oo nacam jirkiisa aanan jimicsanayn uu dhihi lahay kaalay casirkii markaan aan salaada soo dukano halkaasaan banooni yar ku ciyaarin oday walba hadduu bilaabi lahaa oday kastana waa uu ku faani lahaa wiilkiisu soo wadan lahaa laakiin ma dhicin waalidkaasi waa waalidka ay wax rabaayadeeya ma ahan waa waalidka positive-ka ah wax walbana waxa fiican in diinta lagaga daysado diinta salaada iyo maxal da guurka iyo xaquuqda rag leeyahay bisaan ka baranay laakiin ku dayashadii nabigeena muxuu noo yahay alayhi salaatu wasalaam in aan ku dayano waa kiina tusay iftiinka nolosha laakiin wax badan kagama dayano waa inaan dib u baarnaa baaritaan ku sameynaa nabigeena sidoo uu ilmaha ula dhaqmi jiray حديث كميدا هدان كسو قاto wax yar kuma dheeraanaye Abdullah ibn Abbas oo nabiga midigtiisa fadhiya alayhi salaatu wasalaam ba nabiga caano loo keenay dadka saxaabada nabiga hambadiisa saasa loo kala dafi jiray oo wax ay ku barakeystaan buu ahaan jiray markaas midigtiisana waxa fadhiya Abdullah ibn Abbas oo 8 years jiro nabiga muxuu ku yiraahday wuxuu nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay ya qulaam ataduni an u'ida ولا شياق وكده في عربي ويقول أذا جهاي ما إيجار رالي نقو caanahani ma siin karaa qof kale amal iga raali noq bal nabiga alayhi salaatu wasalaam yu idan weydiisanaya ama amar waa xadiis saxiix wiil yaro 8 jir ah buu idan weydiisanaya waa khayru khalqillah cunug yaro 8 jir idan weydiisanaya idan kan dabka lagu shida kama waday amar weydiisanaya bal in uu u ogolaado wiilkii wallahi inuu san nixnixin ama cabsanin uu dhahay alla nabiga hadalkiisa ka hor imaanin fursadu ku weydiiyo la buu ku dhahay ma siinaya hambadaada qof kaleeto uu ogolaaday kalsoonida uu isku qabo bal fiir waa cunug yaro 8 jira nabigii uu leeyahay maya kuuma ogoli nabigana hayuu dhahay siiye bal sidaas la rabaa adiga maanta shiq soo ag fariisa bal kaama yeelay saas